lovely family waa ujeediin oo malaynaa insha allah. safarka meeshaanu ka bilowday, maxadadaanu ka bilowday, waa tagaya insha allah. magaalo waxaan tagayaa, waxaan sidaas iga fogeyn oo adiga saacadkii barii jirto. meeshaasaa insha allah seminaar uga qayb galayaa. gaariyaan ku safri jiray laakiin hadda maanta waxaa qaadanayaa train insha allah haddii ilaa yiraahdo. soo marka basaa hadda qaadanaa, santarkaan tagayaa, santarkaa ka bedelanaa insha allah haddii ilaa yiraahdo. train saacad iyo wuxuu i wadaayaa 10 daqiiqo. haddana insha allah waa kaa saas isku dhigna. asalaamu calaykum. Som avgår från spårlinje A. Currently commute train bound for Tranås with departure time 9, departure for train number 38. Next stop Mjölby. magaalada santarkeeda iyo meelahaas aan soo wareegay insha allah. markaas ay soo duwa markastoo mugdi tahay magaalada hadan insha allah. safarkii mugdi oo ku bilowday mugdi inoo ku dhamaan doonaa malaynaa insha allah. iyadoo mugdi xaafadda ka soo baxay seminaar kadibna waxaa waaye internetra ku jirtaa mugdi iska noqonay arkeena marka insha allah. geedahaas raadhe duurka isaan dhexdeeda safarka jawaabteedii kaa laydinka rajeynaa. marka dadkaas haddana soo raacay meeshay ka bedelanayaan joogaan. اشتينا الله اشتينا ان شاء الله تقدر بدلنا 10 دقيقة كده ان شاء الله. بخان تجاي مركب كاي ساس خلاص عن morning صباح ونعسان كنا أصوات رزي لكن أكرمه تين على مري أولو qalajii malii tinteeda waa iska eber. sariirteyda ka kacabaatana waa hagaajiye. kursigan xoogaa haray yaro tv-gaan fiirsanaya isaga fadhiya. tv-ga waa kana jaarkii xaguu suran yahay, boorsadeeda way xirxiran tahay. saaki I'm back home insha allah haddii ilaa yiraahdo. so marka insha allah waa la soo gelinaa insha allah haddii ilaa yiraahdo. isla maanta inaan soo habay soo geliyaan isku dayaa ka kaya hadda markaas ay socdo. haddana insha allah waa idiinla wadaagaa ilaa gurigaan ka tagaaya. shaygii hadda samaystay, shaygii iska cabaaya, waa degaaya quraacdi hotelka oo degaa soo laabanaa kadib borsadeeda qaadana insha allah haddii ilaa yiraahdo. tareenkayga hadda weli ma goosan laakiin hadda insha allah haddeeraan rajeynaa inaan goosto. waxaan rajeynaa mid 2 saac iyo 50 soo baxay inaan soo qaato. inaan ka gaarayo in kale ma garanaa, fiirinaa هاي أنا جرتون كتجا أو كتجا انتدايا. سمعت إن شاء الله مركب قرعة كده ما جرنا. ما يروم كارد. أوكي يبقى شاء إن شاء الله. سوى ذاكينا. See you. هكذا. أدرك صباح. أوتيل كان بكرة ماشان أوتيل كان بكرة. أوكي. جاردينال أوتيل. أوكي. magaalada ana xalay joogay hadda xogaa iftiin waayo bismillah, laakiin xalay mugdiga ay ahayd mala ogaan kara xataa. soo marka hoteelkaan ay leeyihiin full booked oo ahaa wuu buuxay.
laakiin laba hotel kale meeshaan ku leeyihiin isla labadii hotel ay noo soo direen waa soo baxnay marka tartiib kii kalaan soo aadnay ma ka fogaba hoteelka aan kasoo tegay waa kaaya kardinaal meeshaas dhismaha waaye kan aan soo aadayna waa kana dhismaha waaye marka saas maba u kala fogaba fahante meeshaan aan soo aaday jiirada laga soo galo waa kan tik tik kardinaal ma ujeedada let's check it. Okay. Miiskaan saan ku saarnaa daba afaraad si loo maleynayo maha ugu weyn saaid u weyn anigana iska daba wareegilay xalan ku jira come back soo gala waaga shaxada la jiif fursadii waxayga way xirxiran yihiin dib waxaan isku dayayaa insha allah 2 sac waaye 2 sac iyo 50 tareen baxaa inaan soo raaco insha allah haddii uusan iga tegin marka hoteelkan tagaa hadda check out aan sameynaa horaan iska celinaa and then insha allah waa isdiyaarinaa see you insha allah bajaajta ugu horeysa waaye isfaariya taxi dinkeeda intaa la ma gaashay maqaayaddaani hor taalaa bajaaj oo shidan ka sheekeeya waatana bas waay bas thai restaurant maqaayadda indha yareys hor taalaa meegaa iska leh meeshaan aqada ka cun rabnaa hadeer alxarona beeqo qaayada magaceeda waa kan indha yar adduunka ugu shida meeshaan
shalay weli way taagan tahay videoga hore aan kusoo dhacay marka insha allah rajeynaya haddii kasoo jawaab la arki doono. muhiimadan waxay ahayd maadaama wadankan aan joogno uu sidaan yahay barxad iska banaan markaa tareen soo raacday ilaa magaalada ka tagtay ilaa magaalada kale uu geed leeyahay iyo biyo. hadda meeshaan biyo bay leedahay, waxaan waa bad maahan, waa biyo lasoo leexiyo gacanta lagu sameeyey. sawa duur iyo biyo meelo yaryar waa, hadda xaafada yaryar waa. tareenka kii dheereynaya aan saaranahay marka xooga u socdaa. biyo iyo duur, biyo iyo duur maanta oran soo socda. waxaana biyo lasoo leexiyey maha wabi ma badna maha, waa wax gacanta lagu sameeyo lasoo leexiyey. marka maadaama Sweden oo saan u weyn, Soomaaliya way ka yartahay kulli dhul ahaan, laakiin dhismaheeda iyo magaaladeeda saan u weyn tahay. markii 75% oo duur ah 25 ay dhisan tahay, Soomaaliya maxay noqon kartaa? maanta Soomaaliya meeqa dhisan aan dhigi karnaa, percentage aan dhigi karnaa, meeqa dhigi karnaa ay dhisan tahay. marka dhulkaas saas weyn aan haysano, annaga dhan naga badan, xaalkeeda ilaahay og yahay. wadanka uusan si fiican u dhisnayn, haddana qabiil iyo waxaa loo joogo iyo bakti iyo dowlad goboleed iyo dowladda dhexe iyo wax la isku haysanaa. marka dhulkaas haba naga badan annagoo dhan Soomaaliya dhulkaas intaana loo imaanin oo duul kale uusan u imaanin, dhulkeena aan badbaadsano, dhulkeena aan ilaashano, wadankeena hagaajisano, ayaga dardaarna intaas. marka Yurub wallaahi wadamo badan aan maray, aan tegey, wadamada badan aan tegey, kulligood inta badan saan ay wada badan yihiin. magaalaa dhisan, magaalada ilaa magaalada inta u dhexayso waa duur iyo shirkado iyo adiga meelaha iska banaan qaarkood iyo beero iyo waxaan loo joogin adig. marka wadamadii horumaray ay saan ay duur u yihiin oo geedahan saan u wada qalalan yihiin. hadda geedahan saan u wada qalalana arkaysid waa winter tiidka. geedkan marka hadda bisha meesha abriil lagu gaaro roobaa da-aayo, meeshaana weligeed qalashay xataa mislihaysid. magaalo yaraan soo gala hadda, magaalada markaa saas uga sii baxaayo waxaa bilaabanaya duur haddana aadan aqoonin, waa daaleysaa le. maasha allah. teeda kale waxaan guryahana arkaysid oo dhan, waxaas baqaaradaas waaweyn arkaysid wada dhisana quruxda badan leh. annagaan garanayni maahayna waa baacweynahayni Soomaaliya maaragtay. shirkadaha inta ugu badan wadankan oo kule meelo lookaalayo waa weyn, xafladaha meesha arooska lagu sameeyey waxaas oo dhan waa wada baacweyne, laakiin loo dhisay si maasha allah habaysan oo mukeyf la geliyey oo kuleyse la geliyey aan qabow ka imaaneyn. marka insha allah I hope one day inaan anagana sidaas oo kale noqono. rajeynaya.